سؤال شاهد آدنو ما مركي يقول رئيس سانا اللي وديه هذا أنت بدل يقول سؤال على لابتين حقيقة دي وحارون أقول لي لا بكرين إن جودهان للنجرة الصوماليات أي دور مهم كقاعدين كراد هرمرك الدلكة يولي بنبضين تدلك الصومالية صابت بالشدة الصوماليات بقول كيف تضباط الشن وهذا النجرة سيدا دراد الدور قومي مثلا كقاعدين كراد إذا ولو أجرتو إن dadka qaar ay misan yihiin dhibaatada iyo burburka dalka ka jira inay qayb ka yihiin dhalinyarada waxaan aaminsanahay doorkooda inuu aad u weyn yahay sidoo kalena hadii loo fiiriyo hanaanka maanta dalka uu ku jiro dhalinyarada qaabka ay wax u qabanayaan qaabka ay wax u baranayaan iyo waliba hamiga siyaasadeed iyo kan kaleeto ee ku aadan horumarka dalka inuu aad u wanaagsan yahay oo tar badan yahay waxaa jira dad fara badan qarax ka dhawaajinayso oo kale dadku waxay aaminsan yihiin dadka loo adeegsanayo inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed xaqiiqadeed oo waxa la ilaawi karin waa wax saameyn weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed qaraxyada ama dhibaatooyinka dadka ugu badan ee waxyeeladu ay gaadhaysan waa dhalinyaro iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala gedisan waxa geesanaya lagu eedeynayo waa dhalinyaro waxaan ugu baaqaynaa marka dhalinyaradaas in aysan bulshadoodii iyo shacabkoodii iyo dalkoodii aan loo adeegsan wallahi ma garan karo maskaxdu ay isweydiinaysaa dadkan waxa ay ka faa'iidayaan way dhinteen way isqarxiyeen adduunyada wax kasta oo loo balan qaaday ma umaleynaa inay helaan because qofku uu dhintay bulsho fara badan uu salafsaday dalka Soomaaliya la yiraahdo waxa uu horseeday xaqiiqdii amni darro waxa uu ku sii saacidiyay muddadii dheeraad ee 22 sano ahayd ee ku aadaneed Soomaaliya ma aha wadan xasilan waliba ka dhigay Soomaaliya inuu noqdo dalka ee qaska iyo dagaalada ugu badan dunida soo maray marka aadna waxaan leeyahay dhalinyarada door muhiim ah ay ka qayb qaadan karaan waxaan loo baahan yahay in dawladdu ay samayso plan ama qorshe dhalinyaradu ay nabadeynta iyo horumarinta dalka ka qayb qaadan karaan qorshe ayaga horumarkooda lagu sameynayo sidoo kale in la sameeyo qorshe dhalinyaradu ay ku heli karaan fursado shaqo oo ay meesha kaga bixi karto tashiisku ku aadan dhalinyaradu ayaga wax qasaya hadii waxbarashadii iyo horumarkii iyo shaqadoodii laga fakaro wax badan way yaraanaysaa tan maanta anaga aan tabeena ee dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed inay maanta duurjoog yihiin waxaan ula jeedaa duurjoog ma aan dugaag yihiin maaha laakiin waxaa jira dhalinyaro fara badan oo u bareeray inay geed hoostiis inta fadhiistaan hadan hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed caruur Soomaaliyeed si u dhibaateen lahayn geed hoostood u jooga ayagana waxa ugu baaqaynaa in nolosha caadiga ah dadka Soomaaliyeed ay ku soo biiraan kulleeba dadkaasna adinka waa taqaanaan anna waa aqaanaa ilaahna waa ogyahay inay ku soo biiraan shacabka Soomaaliyeed noloshooda caadiga ah waliba ay ka shaqeeyaan ma aha in aan necebnahay laakiin waxaan leeyahay ayagaana neceb nolosha caadiga ah ku soo biiraan dhibaatooyinka ay dalka ku hayaan xaqiiqdii wax sumcad darro Soomaalida ay ugu sugan tahay sababtoo dal muslim ah oo boqolkiiba boqol muslim ah dadkoodana aan la aqoon waxay isku dilayaan ma jiro khilaaf diimeed oo dalka ka jira ma jiraan dhaqaale aan isku haysano dunida way nagu jahwareersantaa anagina waa isku wareernay marka waxaan leenahay dadka dhibaatada dalka ku hayay sabab ay maanta dhibaatada u sameeyeen xaqiiqdii ma jirto wax ka fiirsadaan dibna ay isugu laabtaan xitaa deerban anaga u tageynaa leenahay oo sababta Faadima ugu horeysay maxaa Abdulshiri dad kale xitaa anaga na soo dildilaaday ku cilbaayaan dalka soo nabad u helo si nabad loo helo ha marka waxa leeyahay wax badan gadaal ha looga fiirsado waa weyn dadka yar intaba